السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دواد عشر كيكوات كمبيوتر كبرشة. waxaan ku bilaabaynaa waxyaabaha ugu muhiimsan ay tahay inaad fahanto marka aad daarto computerkaaga oo aad si sax u geliso passwordkaaga hadduu ku leeyahay shaashad ugu soo horeysa ee ku soo muuqanaysa ayaa loo yaqaanaa desktop. waa meel aad u adeegsan karayso inaad dhigto xogta barnaamijyada kugu muhiimsan ee aad u badan tahay adeegsigooda. waa meesha aad markasta arki lahayd hadduusan wax barnaamij ku furayn sida haddeer oo kale. xog kasta barnaamij kasta waxa uu leeyahay sawir yar oo lagu aqoonsan karo waxa loo yaqaanaa icon. bal fiiri mobilkaaga soo barnaamij kasta malan sawir u gaar ah oo lagu aqoonsan karo. kuwa computerkan waa la isku magacan leh. barnaamij kasta xog kasta waxay leedahay magac u gaar ah oo la socdo iconka. shaashada waxaad saaran kartaa midab ama sawir loo yaqaano desktop background. waad bedeli kartaa haddii aad u baahato. muuqaaladan gudeed ayaad ku baran doontaa qaabka loo bedelo sawirada shaashada la saarto. qaybta hoose usha dheer aad arkayso waxaa loo yaqaanaa taskbar. batanka bidix hoose waxaa loo yaqaanaa start menu. waxaad badan ayaa isticmaali doontaa. qaybtan waxaad kala socon kartaa barnaamijyada ku furan midka aad doonto ayaad ka xulin kartaa si uu soo muuqdo. qaybtan xog muhiim ah ayaad kala socon kartaa sida taariikhda iyo waqtiga, heerka codka haddii uu internetka shaqeynayo iyo waxyaabo kale. sidoo kale waa qaybta computerkaada oo kala socodsiinayo ogeysiisyada cusub. tusaale ahaan marka aad geliso flash halkan ayuu kaaga soo muujinaya inaad flash gelisay. haddii uu fayras soo qabtana computerka halkan ayuu kaaga soo muujinaya. waxaa loo yaqaanaa notification area.